بسم الله وجد حكم محكمة تاريخ مركي إهيد تضبي طبعا كي بشي سدحات لبكون سداد طبعا محكمة درجة كواد عندما قلب كسدا وحي أفريستي دعوة عقابات كيلو هستي هذه سنياشة كلا كو محمد عبد الرحمن محمود صدن جرأة إنا فاضمو شيخ عبد الله كل شيء شبه الله هوسي لابو جمال محمد علي إنا ويلو ديرية جمعالي كل شيء حمر سدح أحمد آذن ويرر إنا ذهبوا علمي حالني كل شيء حمر كواس أو حفيز كحيدا أنت إذا ماذا قلب كسيدة كسو إيديي كمد نقشة والروح بيسان أو لتكوه أو ذها قرن دمس إيدي سنها كواد محمد عبد الرحمن محمود وحاسق قار أهلو كسو إيديي إنه كثير سنة هي كوحدة الشباب ونقابل سنة هي قيبتا قرحيدا sidoo kale waxa lagu soo eedeeyay inuu yahay horjooge iyo macalin bara sameynta qaraxyada eedeysanaha labaad Jamaal iyo eedeysanaha saddexaad Axmed eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad waxa lagu soo eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada dhammaan eedeysanayaasha waxay ciidamada amnigu soo qabteen iyagoo walxaha qarxa ku diyaarinaya guri ku yaala xaafadda ceelasha biyaha dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeelyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneed qodobada 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad 64 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay maxkamaddu qiraalka eedeysane Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud uu ka hor qiray garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada isla markaana uu yahay horjoogaha shabaab u qaabilsan inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye uuna ahaa macalin bara sameynta qaraxyada eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysanayaal Jamaal Maxamed Ali iyo Axmed Aadan Weerar ay ka hor qoreen garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyeen inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada maxkamaddu markay dhageysatay baaraha dacwada oo maxkamadda horteeda ka cadeeyay in saddexda eedeysane ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab eedeysanaha koowaadna uu yahay horjooge bara farsameynta qaraxyada labada eedeysane ee labaad iyo saddexaad ciidamada amniguna ay gacanta ku soo dhigeen iyagoo diyaarinaya qarax markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah koow cadeeymaha looga qoray eedeysanayaasha garsoorka hortiisa labo haan ay ka buuxaan walxaha qarxa oo lagu soo qabtay eedeysanayaasha markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in saddexda eedeysane ay yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay eedeysanayaal Jamaal Maxamed Ali iyo Axmed Aadan Weerar min 10 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan وبالله التوفيق